السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلka diga taawano Taakulo production hadda nagu cusub tahay fadlan soo dhawo hadii kalena aad hornala joogtina isla socdo wanaagsan. Halka maanta waxay idinku soo gudbinayaa maasidii ahayd dhambaal baan tibinayaa hal baan dhahayaa murtiya waxaan dhigayaa oraa sleego dheelitiran iyaamu waa dhamays biliye waxay dhowrayaan sanada dhaadheerinta misana waan dhowhanahay nimcada waan dheelsanaa irkuna waa dheeb qarsoon dhibcuuna waraabiyaa waxaan dhiwanaa dhexyaal dhambiiliyo qoraxda kulul xidiga dhalaal baxshiyo meerahaas dhaafayiyo dayaxa dheelmada caways misana waan dhowhanahay nimcada waan dheelsanaa waxaa la dhahaa intaas kuwa hami dheer fisho intay dhaafeen tagi misana way dhoobayiin dhulkay joogaan maraan dhabtii aragooda maa waxay dhaabeen dadaal inagu maan dhoohanahay asaageen maynan dhugan wuxuu caqli soo dhadhabay ayaynu ku dhaadanaa dhabtii arin moodaynaa cilmigu waa dheeb dahsoon waxaan dhiganaa anfici dhami dadkeen waxtari dhiganuhu waa wargeys degtooyinna dhaafay iyo suyaal buu kuu dhigaa caadiyo dhaqan buu aastayn waxaad hadal dhow u heli aqooyahan dhowr guyaal mintuu sii muutanaa misana waan dhowhanahay nimcada waan dheelsanaa dhugo eegoo balday dhulkaasuu yahayna dhexdiisa waxaa ku nool waxay ishu ay dhammayn dhegtuna maqal koobahayn barwaaqasu dheelitiran naflaha dheeroo ka badan labiyo dhadig bay xigmado ku dheehanayo abuurkood suu u dhigay raxmaanku dhameeyey dhabtii wada noocyo badan misana waan dhowhanahay nimcada waan dheelsanaa dhammaysarageennaday jidhii waxyaha dhammaan dhayaan la ilaalinayn hawaan dheef laga baxshayn lugaan kula dheeliyeyn ma kala dheeraan gacmuhu dhararka way sameeyihiin misana waan dhowhanahay nimcada waan dheelsanaa misana waan dhowhanahay nimcada waan dheelsanaa waad ku maasantahay dhegeysiga fadlan haddaad aragti erey kuga cusub aad garan weydo ama si aadan hore u maqlin comment noogu reebsaan sharaxaad badan aan uga bixino haddii aad u aragtay maasidani inay tahay mid muhiima bulshadana u baahan tahay in loo gudbiyo fadlan weynaad usii gudbisaa asxaabtaada cid kasoo taqaano iyo baraha bulshadaba si u gaadho waad mahadsantahay.